بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدا عادي إنه هيد halkan waxaan soo gelinay insha Allah shaqooyin ka soo banaanaaday hay'adda loo yaqaan Polish Humanitarian Action ama PAH ama BAH baa la soo gaabiyaa shaqooyinkani waxa weeyaan jawhar baa looga baahan waa position aad u fara badan insha Allah halkan ma ku sharxi doonaa waxyaabaha muhiimka ah ee laga baahan yahay horta hay'addan loo yaqaano Polish Humanitarian Action oo ah NGO caalami ah ama international NGO wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano community mobilizers waliba afar position buu baahan yahay oo community mobilizers waxaan looga baahay jawhar Soomaali looga baahan yahay marka hay'addan loo yaqaano Polish Humanitarian Action waa hay'ad non-governmental oo missionkeedu yahay inay keento wax loo yaqaano vision ah a well better place adduunyo markaa ah meel wanaagsan waxaanay shaqeynaysaa ilaa more than 20 sano ayay hawlgelisay waxaana ka shaqeysaa 44 wadan introduction-kaasi waxaad ka heli kartaa linkiga xagga hoose insha Allah waan soo dhigi doono hadaba mobilization ka taqaanaa de waa community mobilization baa marka wax loo yaqaano community mobilization oo waa subject isku train gareeya mararka qaar oo inta badan maadaama oo community in la engage gareeyo ama hay'ad barnaamijyada ka fuliso wacyigelin baa loo baahan yahay loo yaqaano abaabulid isku dubarid dhiirigelin taabagelin hawlgelin marka waxay siinayaan marka dadkani waxay abaabulayaan kulamo ama community meetings bay sameynayaan awareness sensitization bay sameynayaan activity-da mashruuca la fulinaya ay dadka ogeysiinayaan discussion ay qabanayaan committee-da la kulmayaan committee-da train gareynayaan de waa shaqooyinka mobilization-ka inta badan waa hawl iska fudud marka loo hadlayo the meaning macnaha saxda ah haddaba maxaa laga baahan yahay oo qofka doonaya shaqada maxaa looga baahan yahay ayaa su'aashu tahay waxaa looga baahan yahay diploma in social science qofka hadduu diploma xagga social science ka haysto project management maxaa loo yaqaano maareynta iyo maamulidda mashaariicda community development waxa loo yaqaano CD-ga oo ah community development-ka abaabulka horumarinta bulshada ama relevant field-ka wax la xidhiidha oo bachelor-ka xagga bachelor-ka si aad u apply garayso shaqadan maxaa laga baahan yahay shaqadan waxaad ku apply garan kartaa by online baad ku apply garanaysaa qofkii interested ku ah waa apply garan waana afar boos baa looga baahan yahay oo community mobilizers ee loo baahan yahay marka halka blue-ga ah ee linkiga marka raacdo xagga hoose halka blue-ga ay ku qoran tahay apply here ayaad ku dhufanaysaa sidoo kale hay'adda loo yaqaano Polish Humanitarian Action waxay u baahan tahay sidoo kale waxa loo yaqaano crowd controllers bay u baahan tahay ay u baahan tahay waa jawhar waa 3 position waana 8 bilood contract-goodu kii hore intiisa dadku inuu xagga contract-gaan eego muddada shaqeynayaan waa 8 bilood diguna dadka noocan waxa looga baahan yahay high school baa looga baahan yahay galaaska 12 ka baxaan ama jaamacadda ka soo baxaan baadiya ka soo baxaan waa laga jecel yahay dadka crowd controllerska ah waliba khaasatan de waxa weeyaan waxa loo baahan yahay meelaha de marka maaragtay waxa jirta waxa loo yaqaan shaqada waxa kamid ah ensure people do not cross into the areas they are allowed to access meelaha dadka loogu talagalay inaanay gelin inaanay iska soo dhaafin dadkooda la control gareeyo la monitor gareeyo haddii buuq ka dhasho ay maareyn karaan wixii laga shakiyo ama dhibaato sameynaya sometimes inay
dee ay maaragtay adu waa safeguarding waxa loo yaqaano safeguarding policy qaarkii ma waa maqlay Soomaa one of the safeguarding issues oo galaysa marka shaqada waa shaqo fududeedana qofkii iska dir ka baxay iska xareys insha Allah Polish humanitarian action sidoo kale waxay u baahan tahay Allahumma salli ala Muhammad wala yaqaan field monitors ba baahan tahay laba qof ay baahan tahay waa Jawhar iyaduna sidii si leeg waa 8 bilood marka field monitors ka sorry afwan way waxaan field monitors kaasi waxa weeyaan iyaguna waa isla goobta shaqada ku socoto oo hay'adda Polish ay maartay humanitarian action ay shaqada ku fulinayso dad monitor gareeya fiilka shaqada socota registration process ka qayb qaadanayaan dadka marka la diiwaan gelinayo ama community-ga dadka beneficiaries ka dadka consultation bala sameynayaan beneficiary selection ay qayb ka qaadanayaan mobilization collective ay qayb ka qaadanayaan soo marnay marka shaqadan waa shaqooyin shaqo iska fudud oo xareyn kartaan marka waxa laga baahan diploma in social science baa laga baahan yahay maxaa community mobilizers ka isku nature noqonay xagga aqoonta looga baahan yahay something like that isla saas ilagna waxaad samayn doontaa insha Allah wada apply garanaysaa oo marka linkiga ayaad geli doontaa hadii la ka dhigo insha Allah shaqada iyaduna si xigta ay teamkan sidoo kale ay maartay waxaa jirta mashaariicdan FSL ka loo yaqaano FSL project oo waxa loo baahan yahay FSL project officer baa loo baahan yahay waa Jawhar isla shaqada laftigeeduna deadline was statement bisha April dhammaan shaqooyinka was statement April baa dhacaya marka wixii ka dambeeya lama aqbala garanaya idminis مشاريع بدنا واحد شغالين ECHO GFFO SHF كا يونيسيف إلى الشقيان برنامج مدني ومشاريع على قاعتي مركا قفكي مشروع عن كم مسؤول كهان نقولي ويا قف كان لو بعين هاي سوى واحد لو بعين قف كان university degree لحيل دك public health كا nutrition كا food security كا سدح سنوات أربعة لو بعين هاي experience لو بعين حاجة واحد لو قانون community services كا women empowerment ka youth activities ka protection distribution something like that asasi silag online ba loo xareynaya qofkaas si xigaana waxa weeyaan waa laba qof oo waa FSL project assistant ah oo waa loo position iyagu waa Jawhar marka qofkii imka project officer ka laba qof Francis ka cayay loo sii noqonayaan iyagana saas silag insha Allah shaqada iyagana wax looga baahan yahay university degree baa looga baahan yahay sidii si leego qofkii project officer ka intii leego baysan looga baahan yahay labada qof waxa kale loo baahan yahay scope register list baa loo baahan after position waa after position iyaguna registration iska iyo wixii distribution scope iyo update ka xagga maxaa register ka iyo waxyaabaha soo dhan baa inta badan iyaguna ay qaabilayaan sida scope card scope kale maintenance scope registration equipment oo kale cards sida computeradii phoneski waxyaabaha qalabka lagu shaqeeyo baa inta badan ay ku shaqeynayaan qolaasi mobility waxaana soo kale mobility garanayaan beneficiaries ka iyo target village ka waxaan yaqaan iyagana wax looga baahan yahay at least inay dadkaasi ku fiican xagga IT ga diploma ICT ama wax u dhigma ayuu looga baahan yahay waxa kale looga baahan knowledge of cash program waxa loo yaqaan sida WFP baa dadka badan ka qaataan kaadhka oo kale qaab baaji loo isticmaalo oo maaragtay inta badan EVC ga ku shaqeynaya waa inuu qofkan ku fiican yahay problem solving ka xagga MS Office ka waa inuu ku fiican yahay luqadda Ingiriisiga waa inuu aad u fiican yahay sidii si la mid ah dadkaasina waa inay sidoo kale ay u soo xareeyaan bay online shaqooyinka marka shaqooyinkaasi waa shaqooyin fudud badan ka Jawharow iyo cidii ka dhawey laga faa'iideysto insha Allah hadii la ka dhigo
wixii su'aala wixii tala bixina WhatsApp numberka 063 486 baa iska soo weydiin kartaan tala qofkii u baahan CV loo qoro ama CV-ga dhanka CV-ga Fariburg ka yahay wiya kan qiimo yar jooban u qorina insha Allah wax badan tala badan oo siin doona hadii la ka dhigo insha Allah marka stay in touch insha Allah nala soo xiriira wixii su'aalo wana weydiin kartaan shaqadii laga cajisan la xareysto shaqooyinkan waa very neutral insha Allah